halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada magaalooyinka qaar taleefanka gacanta iyo barta internetka ee bbcsomali.com duhur wanaagsan idil ahaantiinba meel kastoo aad nagala socotaan waa maalin jimcaha bisha August ay tahay 6 sanadku waa 2021 goor sheegtu waa labadii duhurnimo oo go'a wararkaanu maalinkan maanta idin haynana waxaa ugu mudan dagaal ka socda magaalada ay qabsatay TPLF ee deegaanka Amxaarada ku taalay Afghanistan oo sheegtay inay laayeen askar ka tirsan taliska sare ee Taliban Messi laacibkii Barcelona maxaa keenay inuu ka tago kooxdii uu jeclaa iyo teebka oo weli laga isticmaalo dawladda deegaanka Soomaalida inkastoo xirfadlayaashiisu wajahayaan suuq la'aan caruurtii aan ku koriyey risqa xalaasha maanta waa digtoor waana la yaqaanaa ilaahay baa loogu mahadiyaa nolol maalmeedka iyagoo fiican waan ka helnaa wixii dhigaalayna waanu ka helnaa waa already maciishadeeda ilaahay baa noo barakeeyey waanu ka helnaa iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ciyaarihiina ka mid yihiin barnaamijku soo saaray Ciise Xaaji Cabdulle anigoo Cabdiraxmaan Cali Dhimbiilahayna aan idin la socodsiinayo ee akhiyaarey duhur wanaagsan qodobadaas oo faahfaahsan way noo soo socdaan balse marka hore dhageystayaal aynu ku horeyno wararkii caalamka oo Kawsar Maxamed Cabdilaahi ay diyaar inoola tahay maanta Kawsar mahadsanid Cabdiraxmaan laba tababare oo ka soo jeeda dalka Belarus ayaa lagala laabtay aqoonsigooda kadibna lagu qasbay inay ka baxaan magaalada Tokyo ee dalka Japan oo ay ka socdaan tartanka Olimbikada labada macallin ayaa orodyahanadooda ku qasbay inay goor hore dib ugu laabtaan dhulkooda hooyo ee ay orodku ku matalayeen Kristina Timanovskaya oo dalka Belarus ku matalaysay orodka gaaban oo haatan ku sugan dalka Poland ayaa sheegtay in la geeyay gegida diyaaradaha iyadoo aanan raalli ka ahayn madaxweynaha guddiga tartanka caalamiga ee Olimbikada Thomas Bach ayaa cambaareeyay tallaabadaasi We are ready to act whenever something is brought or coming to our attention. I think waxaan diyaar u nahay inaan tallaabo qaadno markastoo wax la keeno ama cid nala soo wadaagto waxaan u malaynayaa inaan si degdeg ah uga falcelinay kiiskan Kristina Timanovskaya waan ku faraxsanahay inay bad qabto We are happy that she is safe in Poland. mintidiinta Lubnaan ee Xisbullah ayaa sheegay inay gantaalo ku rideen dhul bannaan oo ku yaala Israa'iil kaas oo ku yaala aag lagu murunsanaa oo u dhaxeeya labada dal Israa'iil ayaa waxay sheegtay in la soo tuuray ugu yaraan 10 gantaal intooda badanna ay ka hortageen ciidamada Israa'iil ayaa gantaaladaasi iyaguna ugu jawaabay madaafiic warbaahinta dawladda ee Kuuriyada waqooyi ayaa sheegay in roobab xoogan ay burburiyeen kumanaan xaafadood oo ku yaala meel u dhow dhul beereed waxaana jira walaac laga qabo cunto yari soo food saarta dadka ku nool halkaasi maxkamad ku taala dalka Suudaan ayaa xukun dil ah ku riday 6 qof oo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee booliiska kuwaas oo lagu eedeeyay inay dileen dibadbaxayaal intii ay socdeen dibadbaxyada 2 sano ka hor looga soo horjeeday shidaal la'aan iyo cunto yari ka jirtay dalkaasi arrintan ayaa dhalisay in dibadbaxyo maalmo socday ay ka dhacaan guud ahaan dalka Suudaan ugu dambeynna waxaa isbitaal la dhigay madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika ee xirnaa Jacob Zuma iyadoo ay muddo 7 ah ka harsan tahay in la horkeeno maxkamad Zuma ayaa waxaa loo haystay eedeymo musuqmaasuq maxkamadda ugu horeysa dalka Koonfur Afrika ayaa horey Jacob Zuma ku xukuntay 15 bilood oo xabsi ah kadib markii ay ku heshay dambi ah inuu jabiyay amar ka soo baxay maxkamadda oo ahaa inuu hor yimaado si loo dhageysto eedeymahaasi loo haystay warkii duhurnimona waa naga intaa Cabdi Fataax aad bay u mahadsan tahay Kawsar Maxamed Cabdilaahi oo nala socodsiinaysay wararka caalamka ee dhageystayaal u diyaar garooba idaacadeennii duhurnimo oo faahfaahsan aynu ku bilownay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa bayaan kooban oo uu soo saaray xalay fiidkii waxa uu ku sheegay walow uu jiro dib u dhac haddana kulan uu dhawaan la yeeshay xubnaha madasha qaran ay isku afkarteen in ugu dambeyn toddobaadka soo socda lagu soo gabagabeeyo doorashada xildhibaanada golaha aqalka sare markaas kadibna la anba qaado sidii hore looga sii socon lahaa doorashada golaha shacabka ee dalka
dhanka kale ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay inuu muddaba siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada waqooyi ee somalilan uu ka dhex waday dadaallo uu ku abuurayo jawi isfahan si kadibna xal looga gaadho arrinta la xidhiidha guddoonka guddiga doorashada ee waqooyiga wuxuu sheegay in wakhti badan umuurtaasi uu geliyey balse hadda uu go-aankan ku gaadhay in la gudagalo doorashada gobolada waqooyi guddiguna ay dhexdooda isdoortaan hase yeeshee guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi oo isna xalay ka hadlayay magaalada muqdisho ayaa dhaliilay ra-iisul wasaaraha iyo qaabka uu wajahayo xal u helidda khilaafka guddoonka doorashada ee goboladaasi waxaan ka xumahay ereyga kale ee lama filaanka igu noqon ee prime ministerka afkiisa ka soo baxay waxa weeye kolkii arrinta aan u geeyey inuu arrintii intuu falanqeeyo uu ka keena jawaab ahayd wuxuu u yeertay 4 xubnood ee ahaa doorashooyinkeen anigu magacaabay wuxuu ku yidhi aniga ka mas'uula doorashada cid kale oo wax kulii ma jiro idinku waxa weeye doorasho yacni inay isdoortaan guddigii isku dhan 11 inaad doorashadaa tagtaan haddaad tegi weydaan ood dooran weydaan waa idinka saaraya oo hadda isaguma magacaabinoo ogaada anaa 4 soo magacaabay isaguna liiskii oo midaysan unbuu oyuu qoray waxa weeye waa arrin aan sina loo qaadan karin hadda mas-uul baan ahay oo aanay ii xil saarteen qolada dhinaca ah ila waanu qaybsannay waanu ishaynaa khilaaf baa naga jira in nala dhexdhexaadiyo oo nala heshiisiiya waa meesheeda oo prime ministerku uuna heshiisiiyo ee uuna dhinac raacin waa meesheeda laakiin hadduu dhinac raaco oo sidaan ugu garowsan karaa prime minister cadaalad samaynaya ma u arki karo shicibka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa waxaan rabnaa cadaalad baan rabnaa kaasi waxau ahaa cabdi xaashi cabdilaahi guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya haatanna haddii aynu aadno dhanka iyo etoobiya fallaagada ka dagaalanta gobolka tigreey ee waqooyiga waddanka etoobiya ayaa waxay la wareegeen gacan ku haynta magaalada laalibela halkaas oo ah magaalo ay unesco u aqoonsan tahay inay ku yaalaan goobo taariikhi ah oo caalami ah kuna taal gobolka midkaas oo deris la ah ee amxaarada haddaba bal magaaladaas muhiimadeeda iyo xaalka ay hadda ku sugan tahay waxaan ka waraystay wariyaha b b c da cabdiraxmaan xaaji cadow oo hawshaasi si dhow la socday cabdiraxmaanow magaalada laalibela ee ka tirsan ismaamulka deegaanka amxaarada ee dalkaas etoobiya maalintii shalay ahayd ayay qabsadeen fallaagada t p l f iyadoo magaaladaasi wax dagaala uusan ku dhex marin t p l f iyo xoogagii dhinacyada kale kasoo horjeeday ee ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa deegaanka amxaarada intaba marka magaalada markii ay soo galeen maamulkii iyo shacabka intooda badan magaalada waa isaga baxeen balse war hadda soo dhacay ayaa wuxuu sheegayaa in uu magaalada haatani uu dagaal uu ku dhex marayo waa kooxdii qabsatay ama fallaagadii t p l f ee shalay magaalada la wareegtay iyo ciidamada qalabka sida ee dowladda dhexe ee federaalk ee dalkaasi etoobiya oo kaashanaya ciidamada gaarka ah ee deegaanada ugu horeeyaan kuwa deegaanka amxaarada balse dagaalkaasi cid kale oo madax bannaan oo noo xaqiijisa ma laha waxaana warkaasi aan kasoo xiganay telefishinka afka dowladda ku hadla agaasinka waaxda isgaarsiinta ee xafiiska warfaafinta dowlad deegaanka amxaarada gizaw taruna wuxuu yidhi dagaal ayaa socda shacabkana wuxuu uga baaqay in ay markaasi ay dacaayadda raqiiska waxa uu ku sheegay fallaagada t p l f ay maqlin oo isu diyaariyaan sidii u difaacan lahayn dalkooga iyo weliba dhulkooda ayuu yidhi 3 caag ayayna dagaal nooga soo qaadeen ayuu leeyahay kooxdan t p l f intaba waxaan ku wadnaa buu yidhi dagaal aan isaga caabinayno maleeshiyaadka t p l f na nolosha ayaan ku qaban ayuu leeyahay waa inta deegaanka amxaarada warbixintii markaa ka soo baxday marka cabdiraxmaan marka dagaalka inuu socdo oo t p l f ta dagaal ay kula jiraan dhinaca dowladda waa ay sheegtay laakiin cid madax bannaan oo xaqiijin karta ilaa hadda ma hayno cabdiraxmaan magaalada laalibela xaalkeedii imika aad sheegtay tabtaa yahay bal dadka soomaalida aan arag magaalada aqoon bal xaalkeeda iyo siday ahaan jirtay iyo muhiimadda ay leedahay bal sawir guud inaga sii cabdiraxmaanow magaalada laalibela waxay ka tirsan tahay degmo la yidhaahdo lasta ee gobolka waqooyiga wallo ee deegaanka amxaarada ee dalkaasi etoobiya magaaladaasi marka xarunta deegaanka amxaarada ee baxardaar waxay u jirtaa 312 kilomitir magaalada maqale oo caasimada deegaanka tigrayn waxay u jirtaa 348 kilomitir magaalada adis ababan waxay u jirtaa 817 kilomitir shacabka ku noolna waxaa lagu qiyaasaa 20,000 oo qof
waana magaalo taariikhi ah oo qadiimi ah oo la sheego in la dhisay qarnigii 13aad xilligii markaasi uu dalkaasi ama gobolkaasi uu ka arriminayay boqorka lagu magacaabo Zagwe oo muddo dheer halkaasi ka soo ahaa boqortooyo markaasi weyn halkaasi uga dhisneed waxaana ku taalo kaniisad dhagax ka samaysan oo ka diiwaan gashan hay'adda diiwaangelisa waxyaabaha dhaqanka iyo taariikhda ee caalamka UNESCO oo la yaqaano qaramada midoobay waana meel dalxiisku ay aad u tagaan oo buuraleyna markaa deegaan ahaan waa dhul markaasi aad u cagaaran buuro ayaana markaasi ku teedsan dadka deegaankaasi ku nool waxay isugu jiraan qayb xoolo dhaqato ah oo dhinaca Tigray xadkooda maadaama ay yihiin dhul yara kuleyl ah iyo qayb beeraley ay isugu jiraan dadka halkaasi ku nool Cabdiraxmaan aad buu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xaaji Cadow oo warbixintaasi inooga warramay bal haddaynu eegno qodobka waxay ka yiraahdeen qaar ka mid ah dhageystayaasheena dhageyste lagu magacaabo Faarax Maxamed Caydiid waxa uu yiri dagaalka ka socda meelo ka mid ah deegaanka Amxaarada ay qabsadeen xoogaga TPLF waxaan u arkaa bulu jahawareer iyo qalalaas hor leh oo la soo darsay xukuumadda Addis Ababa ee hogaaminayo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed dhab ahaantiina gulufkii ay dowladdu ku qaaday gobolka Tigray waxaa ka dhashay afcaal aan la mahadin oo saameeyay guud ahaanba dalka Itoobiya ayuu yiri dhageystahaasi dhageysta kale oo isna aragtideeda noo soo marisay bartaan ku leenay Facebook oo lagu magacaabo Xamde Muuse Saalax waxay tiri Xamdi waxay u muuqdaan TPLF kuwa ka dhabaynaya warkii ay dowladdu ku eedeysay ee ahaa inay dhulboob yihiin maadaama ay weerar ku qaadeen beyti deegaan ay degan yihiin Amxaaradu dagaalkaas ay geysteen waa mid sare u sii qaadaya dagaalka u dhaxeeya dowladda Itoobiya iyo jabhadda Tigray waxaana macquul ah bay tiri inay weeraro kalena ka geystaan magaalooyin hor lehna ay qabsadaan haddaan dowladdu xakamayn kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaasheena oo aragtidooda noo soo mariyay bartaan ku leenahay Facebook weli dhageystayaal halkaad nagala socotaan waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba haatanna galbeedka Afrika ciidanka militariga ee Afghanistan ayaa sheegay in xubin sare oo ka tirsan taliska Taliban ay dagaalamayaashooda lagu dilay dagaaladii dhawaan ka socday magaalada koonfureed ee Lashkar Gah oo caasimadda Helmand Taliban si waxa iska fogeysay weerarkaas waxa uu ka mid yahay gobolka Lashkar gobollo tiro ah oo ay ku dagaalamayaan labada dhinac halkaas oo dawladdu isku dayayso inay baaciso fiditaanka Taliban qaramada midoobay ayaa la filayaa inay maanta qabtaan shir ku saabsan xaalka Afghanistan wararkii u dambeeyay waxa isku soo dibariday oo inoo haya Faarax Lamaane weerarro xagga cirka oo ay qaadeen Mareykanka iyo xoogagga Afghanistan ayaa waxa ay haleeleen fariisimo ay Taliban ku lahaayeen Lashkar Gah habeennimadii xalay halkaas oo maalintii sagaalaad ay dagaallo ka soconayaan militariga Afghanistan ayaa waxa ay sheegeen in Mawlawi Mubarak oo lagu tilmaamay in uu yahay mid ka mid ah hogaamiyayaasha Taliban lagu dilay duqeyntaas isaga iyo tobaneeye kale oo kooxdaas ka mid ah hayeeshee ee afayeen u hadlay Taliban ayaa waxa uu BBC-da u sheegay in Mr Mubarak uu nool yahay labada dhinacba waxa lagu yaqaanaa in ay buunbuuniyaan khasaaraha midba midka kale uu gaarsiiyo militariga Afghanistan iyo Taliban ayaa waxa la sheegayaa in ay sidoo kale gurmad ku daabulayeen goobta dagaalka si qolo walba ay ula wareegto gacan ku haynta magaaladaas istiraatiijiga ah dadka deegaanku waxa ay sheegayaan in Taliban ay markaas gacanta ku dhigeen dad xukuumadda u shaqaynayay oo aan la ogeyn iminka waxa ay ku dambeeyaan kooxdu waxa ay gacanta ku dhigtay qayb weyn oo ka mid ah dhulka wadankaas tan iyo markii ciidamada Ameerikaanku uu hogaaminayo ay bilaabeen inay wadanka ka baxaan 3 bilood muddo iminka laga joogo golaha amniga ee jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa ayaa waxa uu qabanayaa kulan furan gelinka dambe ee maanta kaasoo looga hadlayo xaaladda sii darsanaysa ee Afghanistan shalayna midowga Yurub ayaa waxa uu cambaareeyay weerarada Taliban waxaana ay dalbadeen in la sameeyo xabad joojin degdeg ah oo baahsan oo noqoto mid waarta aad buu mahadsan yahay Faarax Lamaane oo warbixintaasi inala socodsiinayay dunida waxaa ku sii baahaya fayraska corona waxaana ku dhawaad 2 sano laga joogaa xilligii Wuhan laga soo tabiyay kayskii ugu horeeyay ee fayraskaas dalal badan waxay kaga jawaabeen bandow iyo in dadku ay raacaan tallaabooyin loogu talagalay in la iskaga ilaaliyo masiibadaas haddaba dadka Soomaalida ah dad badan oo dersa aqoonta caafimaadku waxay ku eedeeyaan inay dhayalsadaan xanuunkaas oo aanayba jirinba in la iska ilaaliyo hababkii ay ahayd in fayraskaas looga digtoonaado Dr. Liban Cigaal waxa uu buug ka qoray sida uu COVID-19 iyo Soomaalidu isla yihiin waxaana uu ciwaan uga dhigay dhawaqa dunida iyo dhayalsiga Soomaalida haddaba waxa Liban la kulmay oo waraysigan la yeeshay Axmed
cawil jaamac kana waraystay bal waxa buuggiisu yahay iyo waxa uu ku faahfaahinayo. buugga wuxuu ka hadlayaa coronavirus iyo saameyntii uu ku yeeshay dunida, saameyn dhaqaale, saameyn siyaasadeed, saameyn dhinac clinicalna. buugga wuxuu ka hadlayaa cudurkan waxa uu yahay, waxyaabaha cudurkan ilaa intii uu jiray ayuu ka hadlayaa. marka ciwaankan oo kale ciwaankan waxaan ugu talagalnay in nooc baraarujin ah dhawaaqa dunida ama dhawaqa dunida iyo dhayalsiga Soomaalida ee COVID-19. runaantii qaabka dunida ay cudurkan u qaabileen haddaan mithaalkaas iyo madaxweynaha Faransiiska marka uu xanuunkan bilowday, xilligu bilowday, statementii uu soo saaray, statement ka mid ah wuxuu yiri Europe yaysan nagu tashanin, wixii maanta ka horeeyay dunida waa ka duwanta wixii maanta ka dambeeyay buu yiri. saameynta uu ku yeelanay dunida xanuunkan ma ahan mid maanta iyo biri ku eg maahan. saameyn dhaqaale xoog loo keenay, mid siyaasadeed buu keenay, adduunka qaylo badan baa yeertay, aad baa loo hadlay, lockdown baa dhacay, ilaa maanta waa wadamo qaarkood ku jiraan. haddana Soomaalida aad bay u dhayalsadeen xanuunkan. waaya marka madaxweynaha Puntland baad u tagtay, adigu maxaad kala hadashay markaad buuggan aad ku wareejinaysay? runtii madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani runtii aad buu ii soo dhaweeyey, waa kala hadlay buuggan, wuuna la socday buuggan qoraalkii markii aan samayn jiray, maqaalaad ayaan ku bilaabay buugga, waanan u diri jiray. runtii aad buuna u soo dhaweeyey, waxaana u mudan yahay inaan iraahdo mahadsan tahay sida qiirada leh aad igu dhiirigelisay qoraalka buuggan iyo sida aad u soo dhaweysay inaan buuggan aan bulshada gaarsiiyo. waaya laakiin buuggaaga waxaa ku jirta oo aad tiri Soomaalidu macnaheedu waa dhayalsanaysaa xanuunkan, haddana waxaa moodaa dee Soomaalidu inuu shirarka si caadi ah u socdaan, madaxweynuhu waxaa dhici karta inuu xafladaha qaybtood uu ka qayb galo, marka taasoo kale muwaadan ku adkeen si bal arrimahaas oo kale loo yareeyo? waxna waa wax ku saabsan go'aanada mararka qaarkood daruuriga ah ee la qaadanayo ee dunida. shirarka noocaas oo kale tahay waa arrin siyaasadeed, arrinna waa arrin dareenka madaxweynaha iyo qaabkii loo gaarsiin lahaa xanuunkan dadka looga wacyigelin lahaa. tirada dadka uu ku dhacay hadda ma ku qoran yihiin, iyo tirada dadkii Soomaalida ka dhintay? run ahaantii waxaan isku dayey maadaama aanan weli wadanka dhibta weyn ay tahay haykal caafimaad oo dhammaystiran wadanka ma lahan, marka xogta aan hayno waa xog aan ka keennay hay-adaha caalamiga, laakiin xog Soomaaliyeed oo rasmi ah waa jirtay. wasaaradaha caafimaadka iyo in ay tirooyin sheegayeen waa jirtay, kuwaas waa ku jiraan, waana qornay. adiga markii hore maxaa kugu dhaliyay inaad buuggan aad qortid? runtii waxaa igu dhaliyay mas-uuliyad aan dareemay. anigu xilliga uu lockdown ka dhacay waxaan joogay wadanka dibadiisa, waxaan lockdownka igu dhacay wadanka Bangladesh. wadanka waa wadan aan booqasho ku tegey oo aan ugu talagalay booqasho yar oo kooban, waxayna noqotay inaan 7 bilood joogo. 7 bilood aan joogay, waxaan ku fakeray in maadaama qofka aqoonta iyo loo baahan yahay in qofka inta uu garanayo dadka uu gaarsiiyo, waxaan ugu talagalay wax dhaxal ah oo dadka looga tago inaan qoro. horena buugaag hore caafimaad ayaan u qoray. in yaroo aan ka aqriyay waxaa ka muuqatay inuu ka hadlayo xanuunada qaarkood, ka hadlaya xanuunada qaybtood, xanuunkan oo kale uu sida degdega uu la falgalo ama uu dhibaatayo, marka maxaa ka mid ah? xanuunkan xilli dheer ayuu soo jiray. kiisa ugu horeeyay waxaa la helay 1960ga, 60meeyadii baa la helay. wuu isbedbedel badan baa ku yimid. dhowr nooc ugu caansan baa jiro oo buugga laga dhexelayo, ilaa 4 nooc. kii 2002 yimid SARS baa la oran jiray, kadibna waxaa yimid MARS baa yimid isna 2005. kan 19 waa kan novelka ah cusub ama COVID-19 loo bixiyay markii dambe. wuxuu noqday kii ugu saameynta badnaa oo ugu macnaha dhibka badnaa. Puntland oo kale waxaa la sheegayaa inuu meelaha qaybtooda xanuunkii uu soo siyaadayo, marka kaas maxaad kala socotaa? run ahaantii horta xanuunka haddaan kuu sheegay mutation uu sameeyey, noocyo kale dalta nooc la yiraahdo, noocyo kala duwan oo ayaa soo baxay. baalkan wuxuu leeyahay ilaa 20 borotiinka uu ka kooban yahay weeyaan, marka mutation baa qayb ku dhacaysa oo isbedel baa ku dhacay. marka isbedeladaas waxay keenayaan marka in nooc qaab cusub oo dadka markaas uu soo wajaho. marka runaantii inaan la joojin weeyay, aanan la dhayalsan, maahan inuu bahalkan tegey.
kaasi waxa uu ahaa doctor liibaan cigaal oo u warramayey weriye axmed cawil jaamac. haatanna arjiqorayaasha adeegsada aaladda teebka oo muddo dheer shacabka magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya u fidinaya adeegyada qoraalada araajida iyo dacwadaha ayaa xilligan waxaa soo wajahay culays shaqadooda la xidhiidha. waxa ay ka walaacsan yihiin in shaqadoodu aanay sii socon karin maadaama ay adkaatay helitaanka mashiinka teebka ee ay qoraalka u adeegsadaan. mid ka mid a xirfadlayaasha teebka ku qora bartamaha jigjiga ayaa waxaa la kulmay oo waayihiisa shaqo iyo walaaciisaba uu la wadaagay weriye ismaaciil ibraahim burgaabo oo isna warbixinta faahfaahinta kusoo koobaya bal sida jigjiga iyo teebku uu xaalkoodu yahay. waa subaxnimo hore abbaaraha 8 subaxnimo waana xilliga la furo alaaba meheradaha ganacsi ee magaalada jigjiga. bismillaahi raxmaan raxiim ya arsaaq ya fataax. xiis waxa uu bilaabmaysa howlmaalmeedkiisa meheradiisana qeexitaan badan uma baahna. waa kursi miis iyo mashiin uu ku soo shaqaynayay 30 sano ee u dambeeyey. xirfadan teeb qorista wakhtigan la joogo waxay dad badan ula muuqataa mid laga baxay oo ah meherad iyo xirfad aan laga maarayn karaynin nolosha qof iska badaa qoyse. balse xiis hayba jaamac iyo ragga la xirfadda ee ku garaaca teebka bartamaha magaalada jigjiga ayaa xirfadan weli ka dabaraa nolosha qoysaskooda iyagoo xirfadan qoraal samayntana la bilaabay xilligii la aasaasay ismaamulka u goonida qoomiyadda soomaalida ee dalkan etoobiya sida uu qiraya xiis hayba jaamac oo shaqadan ku soo korsaday 13 carruur oo uu dhalay welina ay il dhaqaalo u tahay. horta waxaan anugu 14 carruur dhalay 13 baa nool. carruurtii aan ku koriyey risqa xalaasha maanta waa digtoor waana la yaqaanaa. ilaahay baa loogu mahadiyaa nolol maalmeedka iyagoo fiican waan ka helnaa wixii dhigaalayna waanu ka helnaa. waa already maciishadeeda ilaahay baa noo barakeeyey waanu ka helnaa. xirfadlayaasha teebka wax ku qora oo u badan rag cimrinaya iminka ayaysan saamayn ku yeelan soo ifbixiddii adeegsiga aaladaha casriga ee wax lagu qoro sida kombiyuutarada. waxaa taasi caddayn u ah tirada dadka maalin walba u soo adeeg doonanaya arjiqorayaashan oo badi fadhiista bartamaha suuqa samxadda badan ee magaalada jigjiga. dacwoode iyo dacwaysane sharciga u siman yihiin sharciga. la jaanqaadidda tiknolojiyadda casriga iyo casriyeynta xirfadooda oo iminka sii gabaabsi ayaa u xiis qabaa in loo sababayn karo gaabsi dhankooda ah iyo duruufo ku xidhnaa. wallaahi runtii marka la eego horta dhanka gaabiska waan ka gaabinay oo kuma shaqayno balse waxaa jirta sababa duruufo naga hor jooga. waayo halkan meelaan fadhiisanno ma lihin waa wadda halkan fadhinaa. laydh aanu isticmaallo ma lihin balse biritarra ma hayno. laakiin kombiyuutarada xaafadda yaalla ee laabtoobka oo kale waxaannu ku soo diyaarinnaa wixii foomama ama kala iibsiga ama heshiisyada ama ayaannu ku soo diyaarsannaa markaannu xaafadda tagno. halkan say nooma suurtoobayso inaannu kombiyuutar ku isticmaalno laydhna maahe waana waddo. waxayna raggani ku xeeldheer qoraallada sameeyaan dhammaan qoraallada noocyadiisa kala duwan sida arjiyada dacwadaha iyo heshiisyada iyagoo dadkana u murtiyeynaya hadalka muraadkooda kuna socodsiinaya cidda ay qusayso. markaa maxkamadda maxaad imika doonaysaa? gabadhii halkii kiisay hayeen oo ama ha lay soo celiyo miyaa kala saar. gabadhaydii baan u baahnay muddo yar in la ii qabtanto jecelahay sadexashadii hargeysa ma dheeray leh maya muddaha qabane ilmihiin ayma ka doonaya hawaya gabadha. aqoontan iyo khibraddan ayaana sabab u ah inay suuq yeelata meheradahan teeblayda ah sida ay qabaan dadka ay adeegyada u fidiyaan. oon meeshan damaadka aan u imiday inaan dacwadeyda qorto taasay khibrad u leeyihiin inta aanan garanayna ayaguna fahansiinayaan macnaha. waxaan looga maarmaynay qolada teebka sida sharciga iyaga u baa kaga macquulsan kuwa kombiyuutarka waxay isticmaalaan maalmood waxaan doonay wakiilnaa inaan qorto nin baa ku qoraa gaari sharcigiisii halkuu ninkii magaciisa inuu wakiilnay ku qori lahaayeen unbay gabadhii la wakiilnay ku qoreen marka sharcigay ku habboon yihiin unbaan soo aadnaa mar walba. adeegyada ay bixiyaan xirfadlayaasha ayaa iminka u muuqda midaan sii jiri karaynin maadaama mashiinka teebka ay adeegsanayaan helitaankiisa iyo dayactirkiisaba uu aad u adag yahay iyadoo khibradda iyo aqoonta xiisa iyo shakhsiyaadka ay shaqo wadaagta yihiinna ay tahay mid howl muhiima u haysa bulshada oo aan la helaynin dad bedela sida uu aaminsan yahay cabdulaahi xasan faarax oo ah qareen ka howlgala magaalada jigjiga oo ka mid ahaa arjiqorayaasha teebka wax ku qora ee magaalada jigjiga. kombiyuutar inta la soo qaado dee meesha la soo dhigo oo wax lagu qoraa waxma sheegay laakiin qofka muhiima wax qoraya oo aqoontiibu dee wataa marka waxa dhacaysa dee dadkiina isku wada aqoon maaha islaam baa u imanaysa laga dakhray ilmo markaasay leedahay madaxweynaha iigu qora wax marka dadkan ku toosinaya xafiiska ay ku shaqlahayd waa arjiqoraha
marka runtii haddii kuwan la waayo waxaan u malaynaya inaan cid wax qorto la helin dadka taybka wax ku qora oo ay caddahay in shaqadooda aysan sii socon karaynin maadaama aan la heli doonin mashiinkan ay sanado badan ku soo maareynayeen noloshooda ayaa ku talinaya in maamulka deegaanka ay u sahlaan sidii aqoontan ay ugu gudbin lahaayeen jiil cusub oo iyaga bedela oo adeegsada aaladaha cusub. aad buu u mahadsan yahay weriye Ismaaciil Buurgaabo oo warbixintaasi inala socodsiinayay. haatanna bal intaynaan ciyaarihii aadin aynu ku horeyno dhanka iyo wararka kale aynu heli doono. ka dhagaysa BBC Somali mobilkaaga raadiyaha iyo online-ka bbcsomali.com. bal haatanna barnaamijkii ciyaaraha iyo Mawlid Xaaji Cabdulle bal aynu eegno Messi iyo xaalkiisu halka uu marayo kooxaha imika raadinaya sida la filayo in xaalkiisu ku dambeeyo iyo bal sidii uu kaga tagay kooxdii Barcelona ee uu ku qaatay xilli ciyaareedkiisii ugu badnaa. warka ku saabsan Messi inuu ka tagay kooxda Barcelona xalay wuxuu noqday war aad iyo aad u weyn oo la oran karo mawjado argagax leh ayuu u diray taageerayaashii kooxda Barcelona sababtoo ah waxay filayeen in markuu ku soo laabto gobolka Catalonia gaar ahaan magaalada Barcelona heshiis cusub oo saxiix doono heshiiskaas xitaa waxa la lahaa ilaa ay 40 sano markuu gaaro ayaa laga yaabaa kooxda inuu sii joogo oo qorshe badan baa runtii jiray oo ha Barcelona in xitaa markuu ciyaaraha ka fariisto oo ka mid noqdo mas'uuliyiinta kooxda gaar ahaan safiir sharafeed oo kooxda u matala sidii magaciisa uu uga iibin lahaa dunida laakiin arinta ku saabsan tagitaankiisa waxa la soo sheegaya inay ka dhalatay nidaamka xagga dhaqaalaha ee la doonayo in la giijiyo kooxda lacagta soo gelaysa iyo lacagta ka baxaysa nidaamkaasi oo hadda ay ku hawlan yihiin xiriirka ciyaaraha ee wadankaasi Spain ee La Liga kaasi oo doonaya markaasi kooxuhu in ay xagga dhaqaalaha iskaga mid ahaadaan Messi runtii heshiiskiisu wuxuu heshiis 100 milyan ka badan sanadkii lacag badan bay ahayd runtii lacagta uu qaadanayay marka runtii aan ka hadlayno marka in hadda Barcelona la qabiro ama seeto lagu qabto qarashka ay bixin karto macnaheedu waxa ka dhiganta in kooxaha ka laftigoodu ay awood u yeelan doonaan inay horyaalka ay u tartami karaan marka Barcelona dhibaato dhaqaale jirtay Barcelona qudheeda ma ahan kooxaha oo dhan ayaa dhibaato dhaqaale haysata dunida sida markii uu dhacay COVID-19 marka waxa la leeyahay arinta ugu weyn waxay tahay sidii marka arintaasi xal loogu heli lahaa oo kooxaha dakhligooda la isku miisaami lahaa sababtaas waxa weeye sababta Messi oo markii hore heshiiskii kooxda uu kula jiray 2017 uu la galay ee dhamaaday bishii June aynu ka soo gudubnay in markaasi si kooxda uu jecel yahay ilaa 13 sano markuu joogay ama uu jiray uu joogay in marka lacagtii uu dhimay oo lacagta 100% uu dhimay hadda waxa ugu weyn la isweydiinaya waxa weeye xagee buu aadi doonaa Messi ilaa hadda kooxda ugu badan ee la is oran karo Messi xagga mushaarkiisa way ka bixi kartaa waa kooxda leerada PSG wadanka Faransiiska ka dhisan ee iska leeyihiin nimanka maalqabeennada ee reer Qatar waxa kale laga yaabaa Man City qudheeda oo Imaaraadka Carabta niman u dhashay iska leeyihiin sidoo kale waxa aad loo hadalhayaa Chelsea laakiin waxay u badan tahay Messi inuu aadi doono kooxda PSG anagu ilaa hadda ma hubna ka BBC ahaan laakiin waxa kale laga yaabaa xitaa inuu aado horyaalka wadanka Mareykanka MLS-ka waxa la sheegay inuu guri ka gatay wadankaasi Mareykanka dalxiiska markuu u tag halkaasi oo gurigaasi ku nasto marka warka Messi runtii waa war weyn ninkan waa ciyaartoy weyn 6 mar ku guuleystay ciyaaryahanka dunida ee Ballon d'Or ka qaaday ma jiro ciyaartoy lamida waxa uu sameeyay kooxda Barcelona in ka badan 700 kulan buu saftay 600 gool ka badan buu dhaliyay waa runtii nin ay tabayay doonto kooxda Barcelona waliba madaxweynaha kooxda Barcelona Joan Laporte waxyaalaha loo doortay sanadkan waxay ahayd inuu kooxda ku hayo Messi laakiin arintaasi meesha way ka baxday mustaqbalkiisa waxa say qudhiisa ku imaan doona ma ogin aad buu mahadsan Mawlid Xaaji Cabdulle la socodsiinay wararkii ugu dambeeyay Messi ku saabsanaa bal haddii aan eegno qaar ka mid dhageystayaasheena oo ka aragti dhiibtay Cabdisalaam wuxuu yiri ciyaaryahan Leo Messi oo ka tagay Barca waxay welwel iyo walbahaarba ku tahay wuu taageerayaashii malaayiinka ahaa ee kooxdan taageeri jiray hase yeeshee maamulku waa uu ku fashilmay inuu ilaashado buu yiri xidiga ugu wanaagsan caalamka
kuwaas waxa ahayn qaar kamid dhageystayaasheenna oo inoo soo mariyay aragtidooda barta aan ku leenahay facebooka bal haddaynu eegno wararka kale ciyaaraha ugu muhiimsan Chelsea waxay ku dhowdahay inay la saxiixato ciyaaryahanka Romelu Lukaku heshiis 5 sano xilli ay ka raadinayso kooxda Inter Milan sidoo kale kooxda Arsenal ayaa iyana raadinaysa ciyaaryahanka dhexda uga ciyaara Lazio ee lagu magacaabo Korea sidoo kale kooxda Manchester United wali waxay ku daba jirtaa Trippier oo Atletico Madrid u dheela inkastoo aan wali heshiis sax ah aysan Atletico Madrid aysan ka aqbalin intaas ayaynu dhageystayaal ku soo afmeeraynaa idaacaddeenii duhurnimo oo uu soo saaray Ciise Xaaji Cabdulle farsamadana ay ka mid ahaayeen Juma iyo Cabdinaasir Saxan Soxo tan iyo inta aynu dib u kulmayno waxaanu idin leenahay maalin wanaagsan